soo dhawaada saaxiibayaal waxaa hadlay saacadii lasoo dhaafay 24 saac lasoo dhaafay Steen Haysen John Steen Haysen dabcan waa yaqaanaan dadka ku nool dalka Koonfur Afrika mar wuxuu ahaan jiray mucaaradka ugu weyn ee dalkani Koonfur Afrika dabcan hadda waa maxaafid dowladan GNU da ayuu ka tirsan yahay wuxuuna hogaamiyaa xisbigii mucaaradka ahaa jiray hadda maxaafidka noqday DA da ama Democratic Alliance John Steen Haysen hadalkiisa qofka aqlale oo fahmi karaa waxa uu la jeeday wuxuu ka sheeganaya laakiin marka hore inta South Africa aad joogtid oo barnaamijyadan cunno samaysan iyo jibs samaysan waxaa laga hadlaa horta marka aad dhegeysanayso waxaa qasab inaad fahamsan tahay amaba dadka ayaantan dhagood ay kusoo lalaabteen waxyaaba la yidhaha pesticide iyo eldicab iyo tuberfast iyo organophosphate waxaa la yidhaha waxyaabahaas qaar kamid horta South Africa mar hore ayaa laga mamnuucay isaga marka hadalkiisa wuxuu u egyahay in uu dadka ajaanibta mar xoogaa inuu ku xaglinayo waxyaabaha dhacay isla markaana uu u hiilinayo dadka general leaderska wax soo saara factoryada iyo manufacturerska South Africa inta badan cadaan iskale marka waxaad moodaa inuu u hiilinayo oo xoogaa ka dabcinayo bahasha marka ninkan hadda waa wasiirka agriculture-ka waa wasiirka wax soo saarka dalka Koonfur Afrika warbixintiisa iyo wareysigiisa iyo macnaha hadal u jeediyey ayaan soo qaadanaynaa waxyar waanan fiiri doonaa waxa uu ka yiri bal videogiisa aan ku socono marka hore. Engaging with the variety of the manufacturers, the 5 of them. We're also working closely with CropLife, who have been conducting independent laboratory tests on the samples that were found during the raids on the variety of spaza shops. It is my view and my opinion, and I imagine it will be confirmed shortly, that the turbifos that has been found in the South African spaza shop situation, as well as in some of the other shops, does not emanate from local manufacturers. If one looks at the pictures of what has been found in the spaza shops, it differs quite significantly from the colour and texture of locally produced turbifos. What also heightens the suspicion that this is turbifos that's coming in from a neighbouring country, and that is yet to be determined which one or one. wuxuu leeyahay isagaas ayaan la soconay wixii ka dhacayay maalmahani isbaasa shubshada dalka Koonfur Afrika wuxuuna leeyahay waxaa laga helay meeshaasi ee cunooyinka sumaysan ee tuberfast ku jira ma ahan wax ka yimid waxa warshadaha wax soo saaray dalka Koonfur Afrika waa macquul inay meel kale ka yimaadeen haddana kuwa isbaasa shopka ayuu wuxuu leeyahay macnaha waxay u egyihiin in waxa laga helay aysan ahayn cunno ay soo saaraan manufacturerska dalka Koonfur Afrika marka xoogaa waxaad moodaa in hadalkiisa uusan si toos u caddayn ninkan inta badan cunsurinimada oo lagu yaqaanaba macnaha Steen Haysen ma aha nin jecel dadka foreign-ka xataa South Africaanka madowga ma jecla sida dadka qaar sheegaan bal videogiisa weli aan ku soconno bal oo dhowr video aan ka soo qaadanay. Banned in South Africa for production or distribution in 2016. So the fact that LDCARB is now being found together with the turbifos in these inspections is a very clear indication that there is a high likelihood that the turbifos that's being found in these instances is coming from external sources to South Africa. Obviously that remains to be clarified by the independent laboratory tests, but I imagine those should be out shortly and will be able to give us a further direction. This then begs the question about how we improve biosecurity in South Africa. Biosecurity in South Africa to date has not been treated as a major priority, and if one looks at other countries around the world, they take biosecurity very, very seriously. They do not allow products, organic materials and other materials to come through their ports of entry, whether it's fruit and meat coming through airports. wuxuu ku leeyahay marka meelaan loo dirsanayo wuxuu ku leeyahay waxyaabahan ay ku jiraan horta wuxuu leeyahay eldicab South Africa mar hore ayaa laga mamnuucay ilaa iyo 2016kii balse tuberfast oo laga dhex arkay cunooyinkan eldicabna ay ku jirto macnaha maadaama eldicab mar hore laga mamnuucay dalka Koonfur Afrika waxyaabahan tuberfast-ga eldicabka wada socdo wuxuu ku leeyahay external source oo wax banaanka uga yimid South Africa wuxuu leeyahay marka waxay u baahan tahay in si aad loo baaray reportada iyo security-ga la sugo meel macnaha wuxuu aadayba aanan waxba ka jirinba macnaha oo kuwii madowga ahaa kasii liitaaba markuu ku hadlay markaa fariist
marka intaas ayuu isaguna sheegay. Hadda kulley isaga qawda maqashay waxna uu qaban waa mooyee waa ku faraxsan yahay waxa ku dhacay hadda madowgan iyo dadkan wax ku dhacay aad ugu faraxsan yahay Afrikaantan iyo forankan ajnabiga iyo madowgiisa haysta aad ugu faraxsan yahay isagoo Rabiab.